الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قدومك بارلمانك حلبانada baarlamaanka dhammaan martida kale ee sharafta leh xildhibaanada federaalka iyo kuwa stateka martida inala joogta cali ugu horeeyo waxaan ugu salaamayaa marka hore salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaamka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka dowladda jubbaland baarlamaanka saddexaad doorashada ay sameeyeen iyo codayntu siday u dhacday. waxaan mar labaad u mahadcelinayaa saaxiibadii musharaxiintii igala fadhiyey oo iyaguna natiijadana aqbalay si fiicanna hawshaas ay loogu socto. intaan markaan ka tago waxaan rabaa hadal kooban inaan idhaahdo jubbaland waxay ka soo tagtay meel aada u fog. jubbaland waa deegaan soomaali ay wada degan tahay wada leedahay. jubbaland waxay ku dhisan tahay dib u heshiisiin isu tanaasul iyo walaalnimo. waxaan rabaa inaan taariikhda ka soo bilaabo 2013 markii ugu horreysay jubbaland la dhisay mucaarado badan iyo dhib badan baa jira oo dhacay. dib u heshiintii ugu horreysay ee jubbaland laga qabto waxaa yimid dadkii markaas mucaaradka ahaa ee dib u heshiisiinta ku yimid ee qaatay jubbaland oo ay leeyihiin inay dhistaan. waxaa ugu horreeyey madaxweyne ku-xigeenka labaad suldaan cabdiqaadir uga dheere. waxaa ku jiray guddoomiyaha baarlamaanka labaad guddoomiye ku-xigeenka cabdi baalley iyo mas-uuliyiin badan oo kale. waxaa iyaguna qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamuud sayd aadan oo ku yimid isagoo 6 gobol dalkii ka shaqaynaya ahaa dib u heshisiinta gartayna jubbaland iyo waxay tahay sida loo dhisay. intaa wixii ka dambeeyey reer jubbaland waxay ku jireen dib u heshisiin iyo wax la wada leeyahay. shalay baan idiin sheegaya jubbaland inay ka duwan tahay isteedyada kale oo ay tahay meesha miisaanka soomaaliya laga fiirinayo. waxaan rabaa inaan taariikhda wax yar dib ugu noqdo. 2013 dowladdii markaa uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha maanta jooga xasan sheekh maxamuud dagaal dheer oo dhiig badan ku daatay baa ka dhacday. waxay noqotay dagaal kadib inaan gallo heshiiskii aad ogeyneen Addis Ababa Agreement oo qorayay qodobo markaa reer jubbaland ay liqi waayeen oo ay ka mid ahayd jubbaland jubbaland oo ay ka mid ahayd waa kumeelgaad oo ay ka mid ahayd waa liidar oo ay ka mid ahayd dekedii iyo garoonka 6 bilood in lagu wareejiyo. waxaan u aqbalay danta dalka iyo reer jubbaland inay u baahan yihiin inay helaan bayskii hore dhismaha dowladdooda. taasaan ku soo dhaafnay. intii ka dambeysay waxay noqotay markaa inaan dhisno dowladnimada. dagaalka shabaabka oo shalay ka hadlayay oo culayska ugu badan halkan uu yaallo oo madaxa masku uu yaallo ayaa waxay noqotay inaan dagaalkaad weydeen gallo iyadoo mar walba ay yaray taakulada dowladda federaalka aan ka helin. waxaa ku xigtay dowladdii farmaajo oo iyadana aan garanayno marxaladihii aan isla soo marray iyo mucaaradadii ay abuureen iyadoo maanta ay joogaan dadkii xilligaas mucaaradada ahaa dad ka mida wasiirada iyo xildhibaanada federaalka oo wasiir seeraada wasiirka waxbarashada xildhibaan xidig ay ahaayeen dadkii 2019 mar walbana waxaa ayaan daraa dowladnimada soomaaliya inay noqoto dowladnimo ka shaqayso jiritaan la'aanta iyo dhisid la'aanta dowladnimada soomaaliya. taas waan uga mahadcelinayaa xildhibaanka iyo wasiirka iyo markay arkeen xaaladda taagan ayaa waxay yidhaahdeen godka lagu socdo kuma sii dhacayo. waxaan rabaa inaan hal eray oo kale ku daro kafta baha ahaado. jubbaland waa soomaaliya waa state ballaaran oo soomaaliya ku yaalla. soomaali baa degan etoobiyana ma aha kenyana ma aha. 2019 dowladdii jirtay waxay culayskooda dhan isugu geysay inay etoobiya isticmaasho jubbaland la qabsado say rabta ay ka yeesho.
iyadoo ilaa hadda qaski uu dhinac way ka sii joogo maanta dowladda xasan sheekh wuxuu dib u xusuusinayaa 2013 wixii dhacay iyadoo maanta ay taalo in la yidhaahdo Axmed Madoobe Kenyaanka keeni Kenyaan baa sidan yeeli I'm not a Kenyan I'm Somali baan ahay waxa annaga Soomaalidii aan ku wada hadli weyno laa Itoobiya aan noqonin walaa Kenya aan noqonin walaa cid kale aan noqonin Soomaali baan nahay Soomaaliya asal waxay maanta maraysaa waxaan oranayaa madaxweyne xasan sheekh maxamed taariikhda dib u celin dadka reer Jubbaland way ka bogsadeen shalay waxay soo mareen wada hadal maan diyaaruna dawlado kale ha ku wareegi maanta waxaa la gaaray in ciidamo la soo daldalo oo la geeyo raaskaangoon iyadoo looga jeedo dagaalka shabaabka in laga joojiyo oo wiilal Soomaaliyeed si 2013 shalay la isku laayo laakiin ma dhacayso Jubbaland waa Jubbaland maamul baa ka taliya maamulkaasa mas'uulka lama aqbalayo ciidanka ahayn oo amnigana faragelisa dhibaatana geysata shaqo kalena gashana lama aqbalayo haddaba madaxweynuhu waxaa nasiib darro ah wiilka shalay aan xildhibaanka siinay ee ra'iisul wasaaraha noqday maanta inuu noqdo cidda loo adeegsanayo Jubbaland burburinteeda waa nasiib darro waxaan ku leeyahay ra'iisul wasaare xamso waxaan waa taariikh bari bay qori doontaa deegaan baad ka soo jeedaa dad baad matalaysaa inaad dagaal u xaydxaydato oo aad tiraahdo Jubbaland ma la dagaalama burburinaya shalayna mayna dhicin maantana ma dhacayso kuwa adiga kaa waaweyn baa isku dayay kuwa kaa awood badan baa isku dayay dowladay ahaayeen kuwii farkii ugu yeedhaya laasdaa iyo sidaas laakiin waxaan ku faanayaa inaan weli Soomaali ahay mana dhacayso qof Soomaaliya intii loo yeero inay cid kale intay u hajabto ay u dhigtay garayso ma dhacayso dib ha loogu noqdo wada hadal baan diyaar u nahay aan wada xaajoonno aan isu nimaano laakiin ha laga daayo warwareegga lagu jiro cidda mucaarada cid wax sheegan kartaan halkan ma joogto madaxweyne kalena ma jiro anaa maanta madaxweyne ka amnigana ciidanka amniga gacanta u hay ciidan kalena ma jiro sidaa awgeed waan hadalkaygu waxaa laga yaabaa inuu kulayl ku jiro weli kama tegin Soomaalinimo waxaan dowlado ka diiday Soomaalinimaan ku ogola waxaan cid kale ka diiday Soomaalinimaan ku ogola warmii Soomaaliyeed aan ku wada hadalo waddankana horey buu rabaa inuu socdo dib ha u celin taariikhduna way qori doontaa haddii cid la isticmaalayana shalayna waa la ogaa waxaan ahay haddii amni laga hadlayana nin amniyaan ahay waxaan aqaanana ciidanka ugu muhiimsan oo ugu badan waxay la tahay arrintaas dib ha looga noqdo aad iyo aad baan dadka reer Jubbaland iyo martidaba ugu mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waxaan isku ognahay shabaab oo la dagaalano ciddii kale carqalad keentana gacan baan iskaga qabanayna salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu